fursad la arkay loo bedelay fikrad la falkiyey loona ragay qorshe la sugay oo loo yeelay ahdaaf cadcad iyo hiigsiga yoolal gaadhisteedu leedahay abaar sugan hawl loo kala hormeeyey sida ay soo qabanayso dabadeed laga jiray karmadhaca iyo dheeliga dhan kasta sow ma ahan madaxa maanta ee mashruucan guulaystay ee xaafadda casriga ah ee Burcabil hawl laga soo bilaabay gawaan cidla sidaas laga bineeyay cabir kooban laguna shubay dhagax deber shub lagu masaxay waa halka ay ka bilaabantay shaqadan dabadeedna loo qaatay majarafada gaadhi gacan sibir ku masaxan yahay oo xoog finanjiiday iyo qaadada sibirka sida hubsiimada leh halhale lagu tuurtay halkii loo waday bilowgii qabyaatirka yagleesha mashruucana waxay ahayd inta ugu adag ka soo guduboo kaalmo dhexe iyo guryo wada kacay nin kastoo u arkayay haloosina garowsay in hawl adag ay halkan ka hirgashay hadday ahaatee qurbajoog iyo qolqoljoogba jaanta soo rogay nin kastaabana tacabkii adduunyo intii tookadiisa haytan ku soo biiri dhismayaal loo naashnaashay cayn walba sekadaysa soo eegaya oo dhan walba loo dhexmariyey sidcaddayaal dhab loo dhigay laguna jiiday dildilihii iyo daliigihiina waa deexashada nin kastoo tacab ka galay xaafaddani casriga الرحمن الرحيم magacaygu maxamed axmed geedi waxa kamid ahay hawlada shirkadan Burcabila ee dhisaysa xaafadda Burcabila waxaan ku jirnaa gabagabadii gulanadkii wajigii koowaad ee xaafadda Burcabila oo soo bilownay November 2019 oo imika muddo 3 sano laga joogo isla markaana aan ku dhameynay 40 guri 6 dukaan supermarket masaajid iyo laamigii oo arkaysan ilaahay baan ugu guuleeyay waxa socdo oo kale oo kamarada ku arki doontaan fiiskii labaad oo xagga dambe isaguna socda oo 100 guriyaan u qaadanay ayay isaguna xagga dambe ka socda tan aynu maanta u joognaana waa tii tan iyo waaga loo soo tookahayay injineer maxamed ibraahim samatar gudoomiyaha shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Burcabila Real Estate ugu horeyn haliyay ku dhiiraday hawshan bal hal iyo laba hay nooga sheego halka ay hawlahan isla soo mareen mashruucan cusub ee fikradiisa waxay ka bilaabantay magaaladeena lafteeda dhexdeeda 2016 markaan imi jaamacadda najaax buug yar baan ka qoray oo dhowr iyo 20 page ah shirkadaha Burco baan u geeyay iyo tijaartii qof kasta uu igu diiday diidmo toosa ma aha laakiin wuu cudur daartay si kastaba noqotee maskaxdayda way ku shirtay ilaa aanu ma soo dhawaan fikradii aanu intaasba waa xalilayay midagtan uga iman jiray waqooyi baan uga imaata xaga mar waan istaaga aduu intaasan waxaan doonayay siday u fili lahaa فكركيدي صدح سنوات بيجو قاتي أنا قاش جامعة النجاح دكتور حسن وشوقة ويلا شوقة مكاس وأنت واحد نقطي إن المركز تنبه بلان وين أن صمنه أو أن دسنه عقبته وجوه أنت حقه أجيت منا وحياة هيد نكا سوانين أنا جناح سهين سديب مشروعاته وين وقام كرا مشروع ما كان كحساب تميني قرشيه سواها وشاب قلوب جريج ما كان قيمه كوكا عيوات 1 مليون دولار ورمحمد هالكباكا كيني 8 مليون دولار دتك أنا بيوديني سي أدي أنا حتى أفكر أنا يكون أورانين أرجو ده بنك أركي شري الحمد لله ولا ليال تاسوين كوكولي سني بغالب بدن ما نهينين ونجد دي شيء لكن واحد هيني فرسمه يددال حتى هل كان فرين بان ودريا دليرada maanta iyo cidii fikrad maskaxda ku haysa dhaqaaluhu caqabad yaanay ku noqonin maalinta mashruucaasan bilaabay waxaan gacanta ku hayay lacag ahaan waa $900 oo mushaarkii jaamacadda najaax ah wax kale ma haynin وكون إيانا هل دور كي يمودن كي لبنت بالشدة ومد كستابا كمرخاتي كعي دير هران تلقى دحلي كدبينت مشروعني مشروع المركي يقول رسيه هرت وحن كم مقلي قرب جوجا أوركيجا هني هيكسي أو أنا قون أوجين لكن من كونوش شرحين إنجنيركو وإنوفيشن أما فكرة عصب أو وليمي
waxaan hore uga jiri jirin gobolka oo markaa aad iyo aad u fiican xaafad dhammaystiran oo markaa la jaan qaadaysa magaalooyinka casriga markaa aad baan ugu faraxsanahay ururka Haniya Higsina qayb weyn buu ku leeyahay guryo ku leeyahay waana ku dhiirigelinayaa dhammaan qurba joog oo dhan inay ka soo qayb qaataan lacagtu wax ku xidhaysa maaha marka in gobolka loo soo noqdo oo loo soo jeesto oo si horumarkiisa iyo bilicdiisu ay magaalada u hagaagto in laga qayb qaato baan uu ku boorinayaa maanta waxaanu joognaa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan mashruuc aynu in badan sugaynay Burcabila Company Construction oo ah mashruuc guryo badan iyo xaafad aad u qurux badan laga dhisayo mashruucaas oo isleeyahay annaga laftayadu haddii aanu nahay bahda jaamacatu najaax guushiisa qayb weyn baad ku leedihiin mar labaad markii mashruucan hindisihiisa uu waday talada iyo ducadana waa la garab taagnayna waana tusay naqshadaha iyo waxa uu ku taamayo iyo caqabadaha badan ee hor yaalla aankii maalinta uu qaatay shaqadiisa uga tagay ayuu horta guushani ka dhalatay ogaada maanta ilaahay mahadi waxaynu joognaa mashruuc iyo guuleystay oo walibana sumcad wanaagsan yeeshay oo wajigiisii koowaad xariga laga jarayo oo aan isleeyahay insha Allah taala inta dambana way isaga daba imanaysaa qisada laakiin meesha ku jirta waxay tahay mashruucaas waxaynu ka faa'iideysanaynaa qacma wada jirba wax ku gooyaan injineer Maxamuud oo ku dhiiraday inuu dhamaystiro ama fuliyo mashruuca geesinimada inta leh waxaan leeyahay insha Allah waan ka qayb qaadanayna anagu ka salaadiin ahaan kulli ana afka salaadiinta ku hadlaya wala ii soo sheegay aniga dibadda la iga soo sheegay markii mashruuca la bilaabay dad korba joog ay soo sheegay ragii yiri baan ahaa waraxas aqli gal ma baan kamid ahaan xaqad ma ku soo dhawaad laakiin maanta ana afka salaadiinta ku hadlaya kan dhaaf iyo ka damaano ka qayb qaadan doonaayo rag badan baa jiro kulli anigu guriyaan leeyahay ku jira guriyo kira ku jira ayaa jira marka ayaan waxaan ku dhiirigelinaynaa wal iska helaya shilmaadka inay ka qayb qaataan oo bilaabaan insha Allah hadii ilaahay raali ka noqdo anigu dadkii ugu horeeyay ee fikradda uu u soo bandhigay uu yiri fikrad noocaas ah ayaan wadaa isagoo jaamacadda najaax ka ah gudoomiye ayaan kamid ahaa maalmaha kamid ah uu yimi oo dabeedna naqshada waaweyn oo waxa hadda halka ka muuqda ee quruxda badan oo waraaqa ku yaala ayuu ii keenay wuxuu niyahow dhul ila raadi waxaan doonayaa magaaladaas inaan maaragtaa burco ka dhiso ayaan doonayaa waliba dhul maaragtaa anigu markaa mas'uul aan ka ahaayo meel aan ka fogeyn meesha hadda wax ka sameeyay ayuu yiri dhulka ayaan rabaa inaan waxa ka sameeyo aynu ku shiraakowno waa ka cilmi badan buu ii dhigay anigu marka way gali weeyay fikradii waxaan ku war ninkan maaragtaa aan waxba islahayn armo intaada yar ka galaafta ayaan maaragtaa isiri arintii marka toosna uma diidin oo de ninkii macallin baan ahayo macallinimadu waxay faraysaa qofka fikrad keena inaan la niyad jabin mana niyad jabin hawshii marka uu ila yimin waxba kamaan qaban marka Maxamed waa nin geesiya waa nin qalbi adag waa nin maaragtaa runtii leh hal abuur iyo fikrad maaragtaa nin leh weeye injineer Maxamed oo runtii fakarkan sidoo inoo sheegay muddo badan ay maskaxdiisa ka guuxaysay ilaahayna uu hirgeliyay maanta inuu soo gaadho inaan dah furno waxaan leenahay ilaahay maskaxdaada iyo muruqaaga iyo maalkaagaba ilaahay ku barakeeyo adiga cidii iska garab taagtayba runtii waxay marxaanti uga ahay 19kii raggii uu soo bandhigay ayaan kamid ahaa mashruucan oo runtii aad iyo aad u soo dhaweeyay dad badan oo qurba joogana runtii ku wacyi galiyay in arrinkaasi uu muhiim yahay iyo kuwa gudaha joogaba aad iyo aad baan qurba jooga runtii ugu mahad celinayaa ku dhiiraday isgarab taagay fakarkii uu la yimi injineer Maxamed maalkoodana geliyay ku aaminay maantana ay runtii ilaahay u suurto gashay in uu guriyihii dhamaystiro oo xaafadan oo burco kamid ah oo Burcabila la yiraahdo oo baahiyaadka asaasiga ah ee u dhameystiran sidoo inoo sheegay qaybo kamid ah intii kalena ay ku daba jiraan
waxaan rajaynayaa inay ku dayan doonaan dadkii dambe ama gudaha joogay ama dibadda joogay ee ka baqay markii hore inay iminka ku soo dhiiradaan baan ugu baaqaya wax badan waa laga faa'iidayaa isna wuu ka faa'iidayaa bulshadeena wayna ka faa'iidaysaa insha Allah waxaan ballan qaadaynaa amniga wixii annagana khuseeya ka amni ahaan inaanu kala qayb qaadano xaafadda haday bilayska noqoto bilays la geeyo iyo hadii maxay ahayd noqoto in hadii Ilaahay ka dhigo rugba laga sameeyo bilays waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay ee injineerka la kulmay markii mashruucan la bilaabayay dad baan wakiil u ahaa soo wakiishay anigaan ogeyn marka xafiiskan doonayo waxaan ugu tagay injineerka iyo nina bokor la yiraahdo halkaas oo fadhiya imanka ayaa mashruuca joogay marka injineer maxamed axmed geedi nin biyo culufta ugu jiray mashruucani bal isna intiisa haynoo taataabto kulli haddaan ku yara laabto waxaa la soo aasaasay 15kii November 2019 muddada ilaa maanta laga joogo waxaa loo hirgelay ku dhawaad guriyo 60 guriya laakiin iminka inta wajigeena ku soo furaynay noogu dhamaaday halkan waa 38 guri masaajidkii dukaamadii supermarketkii iyo wadooyinkii guri kasta hormaraysa ayaa muddada noo dhamaatay waxa kale oo socdo phase-kii labaad ee phase 2 waanu kala qaadnay laba oo phase 1 iyo phase 2 ahaa phase 1 iyo phase 2B ahaa marka phase 2B isaga qudhiisa gacanta lagu hayaa oo inba meel bay maraysaa qaar liitarka maraya qaar bilowga qaar meel dhex maraya inba meel bay maraysaa insha Allah ta'ala hadii la iyagana ka dhigo insha Allah sanadkan soo socda hadii la ka dhigo ilaa March April meelaha naga dhamaadaan barajeynaa intaasi kuma eekaanay itus oo taabsiida ah in qof kasta lagu wareejiyo guriga uu ku guuleysana waa ujeedada kama dambaysta ah ee loo tafaxaynaa tan iyo waaga iyadoo uu qurbo joog iyo qolqol joogba booqasho ku tageen barada laga bineeyay xaafadana Burcabila Village maalin wanaagsan saaxiibayaal mar kale maanta waxaanu joognaa daafurka wajigii koobaad ee mashruuca guuleystay ee xaafadda casriga ah ee Burcabila oo ay wado shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Burcabila Real Estate mashruucan oo aanu sidaan horeba ku sheegnay ay saamilay ka yihiin qurbo joog iyo qolqol joog badan oo reer Soomaaliland ayaa noqday himilahana qaaday oo ay ku guuleysatay inay hirgeliso shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Burcabila haddaba daafurka wajiga koobaad ee mashruucan oo ay maanta ka soo qayb galeen gunaanadkiisii iyo gundhigiisii saamileydii farabadnayd ee guryahan idin muuqda ee quruxda badan leh ku guuleysay sida liishaaka kamarada ka muuqataba injineer maxamed axmed geedi waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta shirkadda Burcabila Real Estate ee ku guuleysatay mashruucan hirgelisay maanta waxaan joognaa daafurka wajigii koobaad ee mashruuca xaafadda casriga ah ee Burcabila sida liishaaka kamarada ka muuqatana waxa ka soo qayb galay saamiley farabadan oo soo xaadiray oo yimi goobtan maxay ka dhigan tahay والله runtii aad bay anagu ugu faraxsanahay in aan maanta soo gaarno guntii iyo gabagabadii barnaamijkii aan muddada dheer soo wadnay mashruuca guryeynta Burcabila oo runtii aan muddo 3 sano soo wadnay maanta aan finishiskiisii joognay ama gabagabadiisii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaanba ka soo qaybgalayaashii meel kasta isaga yimaadeen qurbo joogtii qolqol joogtii maamulka gobolka ka degmada iyo dhammaanba mas'uuliyiintii kale ka soo qayb galay barnaamijka mashruucan waxa uu ahaa markii hore riya aad u bedesheen qorshe cilmiyeysan oo aad hirgeliseen sida muuqatana waa waxa guuleystay wajigii koobaad ee mashruucan fariinta aad u dirayso cid kasta oo saamilay ka iyo cidda danaynaysa mustaqbalka inay qayb ka noqoto mashruucan maxay tahay waxaan u dirayaa fariin dhammaanba qurbo joogta gobolka Togdheer ka soo jeeda gaar ahaan degmada Burco inay ka qayb qaataan ama ay u diyaar garoobaan dhismaha dib u dhiska guud ahaan dalka oo dhan ka socda wayna aragnay mashruucan oo kale Hargeysa ka socda berbera maqlay waa laga bilaabaya Burco waa kan oo wajigii koowaad baynu joognaa xaafadda Burcabila waxa soo dhan waxa uu sababa oo keenaya waxa weeye dadkeena aqoonyahanka iyo qurbo joogta iskaashatay isla markaana keenay inay mashaariicda noocan oo kale ay gobolada ka hirgalaan marka waxa leeyahay qurbo joogta mar walba ka niyad gelina waddankiina iyo dalkiina iyo magaalooyinkiina soo maalgeliya si wacan bay mashaariicdu u socotaa meel kasta ka socoto si wacan bay u socotaa marka waxaan leenahay insha Allah ta'ala hadii la ka dhigo anaguna ka Burcabila ahaan xaafadda waxaan ugu talagalnay inay marka hore ka koobnaato 400 guri laakiin insha Allah ta'ala tan waan qorsheyn yar bedelo 200 baan qaybtan markii dambe u bedelay 200 kale waxaan geyn doonaa xagga daanta galbeedka magaalada Burco
dhinac bay ka raranta wax leenahay labada dhinac bay insha Allah hadii la kadiga balance u sameeyaa insha Allah ta'ala hadii la kadiga saasan ku noqon ugu dambeyn in la awaaliyo qof kastoo tacab iyo taagbatiisa ku toosayna waa dhiirigelinta mar kale iyo laba kacleynta mashruucani oo imika madashani la bilay lagu soo gabagabeeyay wejigii koobaad ee xaafadan iyo daafurka midka labaad ee kan xiga